een, labada qof markay isguursadaan oo jacayl isku guursadaan iyo kalsooni isku guursadaan is aaminaan horta sida ay ku kala tagaan way adag tahay. fanaanka caanka ah ee Ilka Case Qays ayaa ka dhaweeyay hoos uu dhawaan la qaaday xidigada caanka ah ee King Jaamac, taas oo ahayd igu labayso igu labayso. waxaa dhawaan la arkayay lamaanaha Ilka Case Qays iyo Nicmo Joker oo hadallo xanaf leh isku dhaafsanaya baraha internetka ah, gaar ahaan TikTok live-ka ah, taa oo dad badani ay u macneeyeen in lamaanahani ay arrimahoodii ay si hoose ku dhaqan lahaayeen ay hadda banaanka soo dhigeen, taas oo kalifi kartay in kala tag bob waa soo boodaysaa shaflabood baa tahay horta taas adi waxaasoo kale private uga hadlaynaa meeshan public ah igala hadlay war wax public-aan kala hadlime adigaan ku kalbeynayaa waryaa sidan hadda ku jirto si lagu noolaan kara private wax la dhaanaa waso in uu Ilka Case la guursaday xidigada caanka ah ee Nicmo Joker ayaa lagu aanaynayaa dagaal joogto ah ee Nicmo Joker inta badan kula jirto kuwa isticmaalo baraha bulshada gaar ahaan TikTok iyo Facebook. Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah qof caan ah oo inta badan wax ku soo qora baraha bulshada ayaa xaqiijiyay in uu Ilka Case Qays guursaday qof lagu magacaabo Ijaabo Ibrahim Maxamed. waxa uu ku soo daawacay bartiisa Facebook sidaan tani soo socota: hambalyo my brother Maxamed Qays Dubow, Ilka Case Qays iyo dhimashadeedii Ijaabo Maxamed Ibrahim oo nikaaxooda ka dhacay wadanka Jarmalka, taas ay u dhiganto in uu Ilka Case markaana uu guursaday xaaskii labaad. sidan aad ku jirto laguma noolaan karo. adna hadda saarta inaad ku noolaato, hadda rabta inaad sidan ku noolaato, wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaad heer gaarin. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay Nicmo Joker oo la ogyahay qof dabeecad ahaan halka ay taagan tahay oo dabeecad aad u qalafsan leh, ma u dul qaadan doontaa saygeeda oo guursaday xaas labaad? maxaase kula talinaysaa Nicmo Joker?